Warbaahinta gudaha dalka Spain ayaa waxay sheegeen in wararka xanta ah ee la xiriira in Barcelona ay xiiseyneyso saxiixa weeraryahanka Atletico Madrid ee Antoine Griezmann in si toos ah ay u gaartay qolka labiska ee kooxda. Wararka Talyaaniga wargeyska Sport ee kasoo baxa dalka Spain ayaa wuxuu sheegay in ciyaartoyda kooxda Barcelona aysan soo dhaweynin markan heshiiska uu Antoine Griezmann ku imaan doono garoonka Camp Nou. Wargeysku hadalkiisa sii wata wuxuu sheegay in maamulka Barcelona ay ka warqabaan rabitaanka ciyaartoydooda oo ah inaysan ku qanacsanayn imaatinka Griezmann, taas oo ka dhigaysa inaan loo dhaqaaqin saxiixa suuqa xagaagan soo socda. Si kastaba, weeraryahanka reer Faranse ee Antoine Griezmann ayaa u muuqda inuu doonayo ka tagista kooxda Atletico Madrid. Qodobka xiga ee barnaamijka aan kusoo qaadan doono wuxuu noqonayaa xiriirka kubadda cagta ee UEFA ayaa ku dhawaaqay magacyada afarta ciyaaryahan ee u sharaxan inay u tartamaan ku guuleysiga abaalmarinta ciyaaryahanka ugu fiican kulmadii lugta hore ee wareegga dhamaadka ee tartanka Champions League, kuwaas oo isbuucan la ciyaaray. Waxaa qayb ka ah xiddiga reer South Korea ee Tottenham, Son Heung-min. Xiddiga labaad ee u tartami doona abaalmarinta waxaa lagu sheegay Liverpool ayuu u ciyaaraa Roberto Firmino. Xiddiga saddexaad ee kasoo muuqan doona waxaa lagu sheegay Gerard Pique ee Manchester u ciyaara. Xiddiga afraad ee kasoo muuqday abaalmarinta musharaxiinta waxaa lagu sheegay Frenkie de Jong ee kooxda Ajax u ciyaara. War hadda soo dhacay oo soo gaaray warqabadka Somali Media Group waxa uu sheegayaa in Diego Costa ganaax la duldhigay kadib falkii uu ku kacay kulanka kooxdiisa Atletico guuldarada ay kula kulantay Barcelona. Sida la filayay oo ay sheegayaan warar maanta soo baxay dalka Spain oo hadal haysay saxaafadda dalkaasi, Diego Costa ayaa la duldhigay ganaax dheeri ah kadib markii uu kaarka cas qaatay kulankii kooxdiisa Atletico guuldarada 2-0 ay kula kulantay Barcelona ee horyaalka La Liga. Waxaa la leeyahay waxaa Diego Costa garka loo geliyay 8 kulan oo ganaax ah kadib dhacdadii uu ku kacay garsoorihii kaarka cas ee u taagay Jesus Gil Manso.